kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono mudane Cabdi Maxamed Cali Gaas mudane ra'iisul wasaare marka hore kusoo dhawow telefishinka caalamiga ee Soomaaliya waan dhawahay aad ku mahadsantiin wareysiga in ugu horeyn bal ra'iisul wasaare waxaad ka warbixisaa xaaladda guud ee xilligan uu dalku marayo walaal waxaan ku sheegayaa Soomaaliya maanta waxay maraysaa marxalad kala guur ah oo aad u wanaagsan waxaan ka guuranaa colaadii iyo dhibaatadii waxaan u guuranaa marxalad cusub jawi cusub ee dawladnimo nabadgelyo iyo horumar wada socotaan horumarkaas dhanka nabadgelyada sidoo kale wuxuu ka hirgalay gobolada dalka ee kale in badan baa xorowday intii hadda anigu maamulka aan haynay waxaa ka mid ah Bay Bakool waxaa ka mid ah Hiiraan waxaa ka mid ah Jubbooyinka waxaa ka mid ah gobolada dhexe ilaa Ceelbuur la socotaan wadankii laga xoreeyay cadawga shabaab marka isbedel weyn oo xagga nabadgelyada ah ayaa wadanka ka jira in la xoreeyo kaliya la xoreeyo ma ahayn in haddana la xasiliyo ayaa laga maarmaana laga dhiso dib u heshiisiin laga sameeyo kabacdina maamul loo sameeyo marka isbedel weyn ayaa dhankaas ka jira dhanka kale xiriir wanaagsan ayaa wuxuu ka dhex abuurmay goboladii dhexe goboladii iyo dawladii taas ayaa keentay inaanu Puntland Garowe laba shir lagu qabto inaanu gaalkacyo hadda shirku dambe ku qabanay inaan gobolada soo booqan anigu waxaan joogay Beledweyne waxaan tagnay Puntland waxaan tagnay gaalkacyo madaxweynuhu wasiiradu waxay booqdeen gobolada kale ee dalka sida Jubbooyinka Bay Bakool Gado marka waxa abuurmay isku xir dawladii iyo goboladiina waa ay abuurmeen dhanka kale isbedelka dawliga ah ee loo baahan yahay inuu dhaco marxaladan kala guurka iyana meel fiican buu maraya oo ah soo ku imaan karaa wuxuu u baahan tahay si artaas loo helahay wado ay ku timaado wadadiina waa taan ka sheekeynay roadmap ka hayd oo ah in dalku uu ka baxo marxaladan ah gumeel gaarnimada ee aan ku jirnay 12 sano ee u dambeeyay maxay tahay marka wadanku inuu dastuur yeesho waa inuu baarlamaan yeesho waa in markaasi dawlad cusubna la soo dhiso August 2012 marka laga soo tago isbedelka dhanka ammaanka ee uu ku talaabsaday ama ay ku talaabsatay dawladda ku meel gaarka dabcan xukuumadan aad ra'iisul wasaaraha ka tahay waxa ay xilka haysaa muddo yar oo kooban muddada kooban ee xukuumaddu ay jirto maxaa u qabsoomay muxuu siiyay hadda qorshaheedu muddada kooban ee u dhiman hadda ka hadlayna waxa weeye waa wax qabadkii dawladda ay sameysay wala socotaan marka anagu meesha qabanay horta waxaan la kulnay dhibaatooyin aad u tiro badan tii koowaad waxay ahayd gaajo iyo macaluul iyo abaar ayaan la kowsanay dhaqaalaha dawladuna oo aad u yaryahay u kooban yahay dawladdu waa gurmatay waa la socotaan oo xerooyinkii u horeeyay badbaado iyo rajo dawladda Soomaaliya ayaa subisay oo ah maadaama dadkii ay dhibaatoodeen in dhaqaalaha yarkaana soo gala aanu $500,000 u horeysay annagu dawladdu ay isku dayday in dadkeeda badbaadiso waana ay badbaadisay oo wax yar dhibaato yar oo meelihii anagu aan gaari karin oo shabaabku ay haysteen mooyaane dalkii in yani dadkii dhibaatooday ee dhibaatadu ay abaartu ay saameysay in gargaar la gaaro tan koowaad way tan labaad isbedelka maanta Soomaaliya ka dhacay dhanka nabadgelyada kaliya ma san ku sheegay wuxuu ka dhacay dhankii dawladnimada wanaaga wuxuu ka dhacay dhankii siyaasadda oo ah wadankii in laga saaro marxaladan ah ku meel gaarnimada oo ujeedaan maanta adduunka oo dhan baa Soomaaliya yimid United Nations baa timid wala socotaan maanta wadan kasta inta madaxtii wadankan waad garan kartaa ilaa Ban Ki-moon ilaa Prime Minister Erdogan ee Turkiga isbedelka weyn wadanka ku dhacay ujeedaan oo ah in intaasoo isbitaallo iyo horumar dhisoo laga sameeyo dalka intaasoo kuna arday hadda مثلا Turkooda ay siiso waxbarasho dabadda iyo wadamo kalaba marka dhan kasta ha noqoto dawladnimo wanaaga ha noqoto ka yani in marxaladan kala guur yani ku meel gaar in laga baxo oo la helo dastuur in la helo baarlamaan August 2012 dawladnimo cusubna la galo nabadgelyada horumar laga sameeyay xiriirkii bulshada
iyo gobolada horumar laga sameeyey xiriirkii international community-ga iyo cilaaqaadka aan lalahayn adduun weynaha oo isbedel weyn ku dhacay oo maanta aan bil kasta intaasoo wafuuda oo oo madax ah adduunkaahi wadan hadda aan imaan adduunka ma uu jiro yani ha ugu horeeyaan wadamada reer galbeedka oran jiray Soomaaliya waa bahalgaleen aan la tagi karin marka maanta isbedel muuqda ayaa yani Soomaaliya ku jiro imasa diyaarad ba hadda maanta timaada xamar blood ka hor aan imaan jirin marka isbedel cad oo muuqda ayaa ka dhacay Soomaaliya yani waliba asleeyahay yani in lagu gaaray muddo yar oo kooban ay dhib ahaan lahayd waxaad ku soo celcelisay dabcan in isbedel dhanka ammaanka ay ku tallaabsatay dawladda ku meel gaarka gaar ahaan xukuumaddu haddaan soo qaadano magaalada Muqdisho waxay ka kooban tahay dabcan 16 degmo 16 kaasi degmo marka laga reebo xaafado yar oo kooban waxa gacanta ku haysa dawladda ku meel gaarka Soomaaliya haddana waxa muuqata in uusan sugnayn amnigeedu oo xiliyada habeenkii ay ka dhacaan dilal qorsheysan ugu yaraan 3 ilaa 4 ruux habeen walba lagu dilo degmooyinka magaalada Muqdisho sidoo kale waxa qayb ka ah qaraxyo qorsheysan oo ismidaamin ah inay ka dhacaan degmooyinka magaalada Muqdisho waxaan ugu dambeeyay qaraxii shalay ka dhacay xaruntii golihii murtida iyo madadaalada ee National Theatre oo dabcan dad fara badan ay ku waxyeeloobeen marka muxuu yahay amniga ay ku faanayso xukuumadda ama guud ahaanba dawladdu haday caasimadii ka dhacayaan dilal iyo qaraxyo ismidaamin waa fiiri markasta oo cadowga laga guuleysto يعني dagaalka foolka ahi inaan mar walba ogaano weeye inay bedelanayaan taktikada inay waxa la yiraahdaa asymmetric warfare markii laga adkaado dagaalkaas ka foolka ahi inay dib ugu soo laabtaan caruurta iyo guryaha inay dib ugu soo laabtaan dadka masaakiinta oo ay laayaan waa fulaynimo marka waxaana muddo yar bay kooban bay soconaysaa iyada laftigeeda waxaad u jeedaan waxa weeye fal kastoo dhaca intaas oo fal oo kala dhici lahaa ayaa ciidamadeena nabadgelyada bariisku iyo nabadsuguduba ay fashiliyaan marka waxani waxa weeye waa haratida u dambeysay maaragtay ay ku dhiman lahaayeen weeye marka anaga taasi micno weyn uga fadhido waxa weeye of course waxa loo baahan yahay xoreynta marka qaarkood waxa ka muhiimsan xasilintana waa ay socotaa marka way dhacaysaa qarxis midaan waa dhacaysaa dad yani shakhsiyaad la targad gareeyo oo la dhibaateeyo waa dhacaysaa laakiin muddo yar oo kooban baa tahay sana sii jiraysaa mooyaane waxaa naga go-an taas laftigeeda in laga hor yimaado wax laga qabto dii ilaha yirahdo waana dhacaysaa marka laga soo tago cadowtooyada xarakada al-shabaab ay u qabto dawladda ku meel gaarka haddana mis leedahay qaraxyada iyo dilalka inta badan ka dhaca caasimada Soomaaliya ee Muqdisho gaar ahaan goobaha ka agdhow xarunta ugu weyn dawladda ku meel gaarka ay madaxtooyada in ay fududeeyaan ciidamada ammaanka ama shakhsiyaad kale oo dawladda ka tirsan waa dhici kartaa tuunka noocaas inuu jiro waa suurtagal laakiin aniga waxaan aaminsanahay isku soo duubo waxaani hal maalin kuma dhamaanayso weegna kuma dhamaanayso usbuucna ku dhamaanayso bil ku dhamaanayso waxaan way jiitamaysaa nabadgelyadu waxa u imaanaysaa tartiib marka shalay waxaanu taagnay jidkan marka mukarrab inaan la mari karin anagu saxaaf baan deganaa dhib bay ugu ahaan jirtay inaan imaado madaxtooyada maantana habeenkii 12 habeenimo 12 saqda dhex ayaa guriga laga tagaa oo la aadaa magaalada marka shalay qofkii joogay maantana arkay isbedelka ayaa garan kara laakiin 100% hal mar ma la heli karaa in nabadgelyada ay sugnaato oo wax fal dambiyada isa dhicin adduunka meel ka jirta ma jirta dabada marka haddaanu filayno inaan waxba la dilin inaysan ismidaam usan dhicin expectationkaas waxa weeye waa uu degdegaas ku yimaadahay waxa laga yaabaa inuu yahay mid khaldan marka way imaanaysaa nabadgelyaduna waa sugnay waxyaabaha yarka iska dhacayaana oo ay hadda ay nimankan ay sameynayaan waxa weeye ma sii soconayaan waana ka hortagnaa hadii la yiraahdo hadda halkay marayaan hawlgallada ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ay isu kaashanayaan oo ay ku doonayaan in ay dalka ka saaraan xarakada al-shabaab wajadaano yani hawlgalkii ciidamada military si fiican buu socdaa caasimadii waxta laga saaray oo dambeysada Daynile dhulka ay joogeen shabaabkii laga saaray wayna sii soconay ciidamadeena ilaa ay gaaraan gobolada kale ee dalka sidoo kale xoreynta waxay ka socotaa Bay Bakool maanta waa xor wala socotaan Baydhabo Xudur garb yani Gado Hiiraan
gobolada dhexe jubbooyinkii inta way ka socotaa xoreyntu idinka ilaahaysna waxaan rajeynaynaa waqti yar gudahood labada bisha soo socota ama bisha kasii dambeysa in Soomaaliya meel dambe oo shabaab uu joogahay aan la arki doonin haddii Ilaahay yiraahdo rajo intee la eg ayay ka qabtaa xukuumadda ku meel gaarka in muddada kooban ee u dhiman ay kaga saarto guud ahaanba dalka xarakada al-shabaab haddiise ay dhacdo oo ay ka saarto muddada u dhiman al-shabaab dalka oo dhan muxuu yahay qorshaha aad ka damacsan tihiin dalka Soomaaliya waxa weeye umarin may in dadku islahaayeen 6 bilood ka hor Soomaaliya markay shabaabku joogeen guriga shaqaalaha iyo isgoyska dabka iyo isgoyska sayidka ay joogeen oo orodka lagu mari jiray Makka Mukarrama umalma in la islahaa shabaab ayaa sahalkaas lagaga saaraya xamar iyo caasimadda Soomaaliya iyo gobolada inta kaleba waana ay dhacday waana kaga guuleysanay waana ka saarnay dalka waana ka xoreynay ciidamadii ka xoreynay way joogaan ayagiiba hadda wada howlgalkii military wayna ku guuleysanayaan wayna ka saarayaan dalka waana xasilinayna waxa weeye xoreyntu way saaran tahay waxa ka muhiim ah also la rabo loo baahan waxa weeye in la xasiliyo in dadka la heshiisiyo in gudiyo nabadgelyo loo dhiso peace committees in maamulkii marka la dhiso ka bacdina marka wixii tashiilaadka dawladdu ay sameyn kartaa ay sameyso ama noqoto social services waxyaabihii iskuuladii caafimaadkii biyihii la gaarsiiyo dadkii wixii la awoodi karo ama ha noqdaan hay'adaha caalamiga ah xiriirka la leeyahay ama noqoto dawladda laftigeeda iyo amnigiina la sugo maamuladina la dhiso iyana way socotaa waxaas hawla ayaa isgarab socda oo aanu sameynayna haddii la yiraahdo waxaa noo qorshaysan dalkii oo nabadgelyo lagu soo dabaalo dastuur cusub loo sameeyo baarlamaan uu yimaado dowladnimo cusub la galo 2012 August haddii Ilaahay yiraahdo lagana baxo ku meel gaarnimadii oo dawlad taama la helo qorshaha dawladdu intaas weeye haddaan usoo leexano dhanka bilahan dambaba dawladda ku meel gaarka ay ku mashquulsaneyd hirgelinta dastuurka iyo weliba qorshooleedka roadmapka bal halkay wax idiin marayaan dastuurka iyo roadmapka meel fiican maraya horta waxaan rabaa roadmapka in dadka laga yaabo in aysan si fiican qaarkood aysan u fahmin roadmapka wuxuu ka kooban yahay 4 qodob oo kaliya in la fahmaan u baahanay tan koowaad waxa weeye nabadgelyada oo la sugo tan koowaad tan labaad oo wadanka securitygiisa oo la sugo tan labaad waxa weeye in isku xir dawladda iyo gobolada tan saddexaad waxa weeye dawladda wanaag la helo tan afraad waxa weeye in dastuur fiican la helo isbedelka ku meel gaarnimada laga baxo oo dawlad taama la helo August 2012 roadmapku marka qorshihiisu 4 qodob ayuu ka kooban yahay afartiina saacada ku sheegay intuu meel fiican bay marayaan marka waataanu halkan isugu nimid August 4 ilaa 6 2012 roadmapka aan ku saxiixnay heshiisku waxa uu horeeyay oo Soomaali isugu timaado oo muddo yar gudaheed ay ku samaystaan wadadii adraqadii ama ay kaga bixi lahaayeen ku meel gaarnimada ay ku heshiiyaan Soomaaliya inta isugu timaado ka bacdi waxa dhacay shirki ka dambeeyay oo lagu korgeyn roadmapka waxa dhacay Garowe-kii koowaad Garowe-dii labaad halka hadda isugu tagnay shirki London oo ka yaani xir ka horeeyay waxaas oo dhan waxay ahayd dhamaystirka iyo hirgelinta roadmapka oo 4 qodob ka kooban nabadgelyadii iyo wadankii oo la xasiliyo musuqmaasuq la dagaalamo oo dawladda wanaag la suubiyo dalkii iyo dawladda oo isku xirma iyo dastuur dalka loo sameeyo lagana marxaladan kala guurka ama ku meel gaarnimada intiina meel fiican bay marayaan waqti intaas qodobna kulligood waxaan ku fulinay waqtiga loogu talagalay iyo waqti ka horeeya qorshooleedka roadmapka oo kale markii aan soo qaadano qaar kamida mudanayaasha baarlamaanka oo dabcan ah sharci dejiyayaashii dalka qaarkood waa ay kasoo horjeedaan qodobo kamida roadmapka sidoo kale culimo oo diinkii iyo qaybo kamida waxgaradka Soomaaliyeed iyagana waxaad moodaa inay kasoo horjeedaan marka rajaynta laga ayaad ka qabtaa in uu dhaqan galo waxa weeye marka leeyahay dad baa kasoo horjeeda roadmapka dabcan waxa laga yaabaa qof dad aan fahamsanayn roadmapka wuxuu yahay inay jiraan marka يعني فهم الآن تاسينا إني كنتو إلا إذا ضد بك سور شيء لكن أنا عم هاي هدي دور رود ماب كسودة يهددكوا أيوة فهمان لو أنا بعين وفهمان أو آفر تسقط عن كهذا اللي واحد عدي ليس الدولة النبي وناك إلا هلا وحسلنتي الدلك يحرينتي الدلك إلا سميه إن لقب حكومة الجهنمية الدولة تعمل له دستور دلك إن لو ديسو
intaasi qofka diidayahay sababta ku cilada inay ku diidaya inuu sheego wey. nasiib daro baarlamaanku yani ma aysan dhicin inay ka doodaan road mapka oo fursadaasi marna ma aysan dhicin, ma aysan jirinin. marka ma aaminsanay aniga in majority-ga amase inta badan ee baarlamaanku inay kasoo horjeedaan road mapka ma aaminsani. anse waxaan aaminsanay inay taageersan yihiin, sababtoo wanaag un baan laga shaqeynaya mooyaane wax oo hadda ciladaho aniga hadda iga muuqata road mapka ma jiro. sida aan la socono dalku hadda waa uu kala qaybsan yahay maamul goboleedyo iyo waxaa loo kala qaybiyey ururo siyaasadeed. Ahlusunna wal Jamaaca oo kale waxay ka mid tahay waa urur jiro oo urur siyaasadeeda diiniyana dabcan ku shaqeeya. maamul goboleedka Puntland oo kale iyaguna waa maamul goboleed isna ka madax banaan dawladda ku meel gaarka. hadda Somaliland oo kale iyana waa maamul ka madax banaan dawladda ku meel gaarka oo gooni u goosatay. marka sideed isleedahay waa ay ku dhismi kartaa dawlad loo wada dhan yahay oo aan ku meel gaar ahayn? waxa weeye waxaa ka hadashay in ay jiraan maamul goboleedyadu horta waxay noogu jiraan oo ay ku qoran yihiin axdiga qarameedkeena bay ka mid yihiin inay 2 gobol iyo wixii ka badan ama maamul goboleed subsan karaan. sidoo kale waxaan lasku raacay in la sameeyo system of federalism oo ah in dowladda aan fahmno loo baahan maxaa loola jeeda maamul goboleedyada. waxaa la rabaa dowladnimada in si aysan gacanta ugu gelin hal shakhsi, hal qof, hal magaalo. waxaa la rabaa dowladdii in la ballaariyo oo ay gobollada dhan ay gaarto. tan koowaad marka hore waxa weeye awoodda dowladda in loo qaybiyo si ah horizontal wax la yidhaahdo oo ah si siman oo uu jiro hay-addii sharci dejinta, hay-addii fulinta iyo hay-addii maxkamadii ay jiraan oo markaa check and balance u jiro ay qolada kale awooddeeda ay xadido. marka haddana waxaa la yidhi taas keliya naguma filla oo waxaa la rabaa awooddii dowladda si vertical wax la yidhaahdo loo qaybiyo. ay jirto dowladdii sare federaalka ahayd, dowladdii dhexe, dowladdii stateki iyo localkii. waxa weeye dowladdii hoose, gobolladii iyo dowladdii dhexe inay isku xiran yihiin. maxaa loo jeedaa? waxaas dhan waxaa loo jeedaa awoodda dowliga in la qaybiyo. saa horta in loo fahmo weeye maamul goboleedyada inay ku abuurmayaan. laakiin maamul goboleed haddii ujeedadiisu tahay reer hebel baa meel goostay, dee maamul goboleed taas micneheedu maaha. tan labaad waxa hadda road mapka ka wada shaqeynaya oo raba inay ka baxaan ku meel gaarnimadu waxa weeye gobolladii. saxiixayaashaad ujeedaan laga hadlaya waxa weeye waa maamul goboleedyadii iyo dadkii kale stakeholderska ka ahaa Soomaalida. ahlusunnana kuwaas ayay ka mid tahay. gobollo waxaa jira ay ka dagaalamayaan hadhowtan la rabo marka maamul goboleed in loo suubiyo. marka isku soo duubo Soomaali meel u wada jeeda, dan qura ka wada shaqeynaysa, kana rabta inay ka baxdo ku meel gaarnimada oo dowlad taam hesho waxa hadda ka wada shaqeynaya road mapka iyada. marka taasina waa ay socotaa meel fiican bay maraysaa. Somaliland oo kale dabcan maamul goboleed way ka gudubtay, waana dowlad sida ay sheegtay gooni isu taagtay oo goosatay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya. midin kugu jirtaa idinka qorshaha in ay ka mid noqoto dowladda guud ee Soomaaliya loo dhisi doono? hadda se maxaa fikir oo ay ku leedahay qorshooleedka road map? dabcan waxaa fiiri waxaan rabnaa Somaliland wallahi waa soo dhaweynayna nabadgelyada iyo horumarka ee ka jira dalka isaga yani gobolkaas Somaliland. waxaan rabnaa marka dabcan Soomaalidu khasab kuma keeni karto yiraahdo anagu waan ka goosano xoog laguma keeni karo. marka waxaan rabaa in la yiraahdo inaan u muujino walaalahayga Somaliland in ay yani ku ay iyaga yani better of yihiin oo ay maslaxadooda ku jirto inay inay Soomaaliya ku soo biiraan, in la fahamsiiyo, laga dhaadhiciyo in dantooda ku jirto, maslaxadoodu yani ay ku jirto inay annaga naga mid ahaadaan, aysan ahayn aysan gooni goosadka aysan maslaxadooda aysan ku jirin. in annaga mas-uuliyaddaas annagana saaran tahay in ayaa ka dhaadhicino, iyana ay noo sheegaan wixii ay ka rabaan maslaxadooda ay tahay, Soomaalida ay ka rabaan oo aan markaas dialogue iyo heshiis lagu galo baan aaminsanahay. sidoo kalena haddee hadda saasoo tahayna saamigoodii waa uu joogaa, dee baarlamaanka ka mid yihiin, xukuumadday ka mid yihiin, ciidamaday ka mid yihiin.
oo hadda Soomaalida hadda yani wax hadda kaga maqan hadda halkan ma ay jiraan marka laakiin la isku soo xirmo oo ayaga la keeno oo si genuine oo double loo wada hadlo oo yani uu dhaco dialogue iyo isfaham waa laga maarmaan waana soo dhaweynaynaa dabcan xilligii lagu balansanaa in lasoo dhiso dowlad guud oo aan ku meel gaar ahayn oo Soomaaliya ay yeelato muddo kooban baa ka harsan maxaa marka u qorsheysan xukuumadda ku meel gaarka waxaan qorsheysan barnaamijkayga sida loogu talagalay u socdaa waqtiga loogu talagalay inuu ku fuliyaa roadmapkii iyo processkii dowladnimada lagu gaari lahaa lagagana bixi lahaa ku meel gaarnimadu sida loogu talagalay u socdaa dastuurkii waxa weeye in la dhameystiro bishii Abriil 20keeda in la isu keeno Constituent Assembly-ga ansixin lahaa May 15keeda in baarlamaankii cusba la soo xulo uu yimaado oo yani June 15keeda ka bacdin la doorto madaxdii dalka ee qaranka ee ugu dambeyn August 20keeda 2012 in waqtigaasaasi jadwalka noocaasi lagu socdo saasna ay u hirgasho roadmapkuna ku hirgalo lagana baxo ku meel gaarnimadii dowlad taama oo Soomaaliya oo dhan hanan kartana la helo isla markaasna xoreyntii dalkuna ay dhameystiranto gobolada inta dhiman cadowga laga saaro ayaan rajeynaynaa hadii la yiraahdo maalmahan dambe waxaa jiray warar sheegaya in doorashada xilligeedii laga soo hormariyay oo 3 bisha Abriil la qaban doono ama la dooran doono madaxweynaha Soomaaliya oo dabcan bedeli doono madaxweynaha hadda talada haya sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ku meel gaarka arintaas maxay kala socotaa xukuumaddu wax warakama arinta iyada ah mana u malaynay inay jirto arintaas hadii jirtana anigu ma aaminsan inay tahay wax oo waxaan ka warqabo kulay ma anigu laakiin anaga saan ku sheegay barnaamijka saan ku sheegay way oo ah in dastuurkii dhameystirkii la soo dhameystiro bishii Abriil 20keeda la soo keeno cidii ansixin lahayd May 15keeda saan idin sheegay ka bacdina baarlamaanka cusba doorashadiisi ay timaado June 15keeda marka anagu jadwal noocaas ayaa noo qorsheysan marka barnaamij kale oo feer socda kan oo aan la socdahay ma ay jiraan xukuumadeeduna kama hadal cid kale oo ka hadashana ma garanayo sida aan la soconno baarlamaanka Soomaaliya hadda waxaa ka dhex taagan khilaaf sababay in ay yeeshaan sida ay sheegeen laba gudoomiye baarlamaan markii iyadoo baarlamaankii khilaaf uu ka dhex jiro qaabkee bay u suuragali kartaa in la qabto doorashadii kale ee madaxtinimada dalka wallahi anaga waxa weeye xukuumadda shaqay leedahay baarlamaankuna shaqo u leeyahay marka anaga xukuumad ahaan wixii waajibkaygu ahaa dastuuriga xukuumadda inaan qabsano weeye tan baarlamaankana ayaga u taallaa inay isxaliyaan ayaga u taallaa in hawshii loo igmadayo dastuuriga ahayd ay gutaan marka taas ayaga u taallaa laakiin anaga xukuumad ahaan shaqaaleena shaqadeedana waa wadana waa noo socotaa shakhsi ahaan suuragal ma tahay inaad isu soo taagto xilka madaxtinimada Soomaaliya hadiise aysan taas fikir ahaan adii aysan kugu jirin ma jiraan qof aad isleedahay waa uu mudan yahay in loo dhiibo xilka madaxtinimada Soomaaliya oo wax waa uu ka bedeli karaa xaaladda 21 sano jirtay dalka jirta maasantahay waxa weeye aniga hadda waxa focuskaygu yahay weeye ka yani ra'iisul wasaare ahaan barnaamijkan ku sheegay oo roadmapku inuu hirgalo in wadanka la xoreeyo in dastuur loo sameeyo in dowlad taam ah la helo August 2012 taas way anigu hadda waxa uu yahay focuskaygu ama mashquulka ku ah Soomaaliya yaa dooranaysaa Soomaaliya u taalla eega la rabaa marka in cidii maslaxad ugu jirto ay u arkaan in ay yani markaas waqtiga isaga ah ay ku haboon tahay inuu hogaamiye dalka hoos u ka saaro wixii dhibta jirta dan ayad Soomaaliya u taalla anigu aan hadda ka hadli karo maaha aan ka jawaabi karo dhanka ammaanka haddii aan usoo laabto gaar ahaan qaraxii shalay ka dhacay tiyaatarka ma jiraan wax baaritaana oo xukuumaddu ay sameysay oo ku wajahan qaraxaasi waa jiraan baaritaankana waa uu socdaa hay-adihii nabadgelyada ku shaqo lahaa ayaa arintaas iyada ah wadaha mashquul ku ah golihii wasiiradu maanta markay fariisteenna ay u xilsaareen guddi arintaas kasoo shaqeeya warbixin cadna ka keena mas-uuliyaddeed cildii lahaydna ka jawaaba marka waa socotaa baaritaanka waa socdaa
sidoo kale anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan rabaa inaan tacsi u diro eheladii iyo dadkii ay ka gooriyoodeen dadkii shalay ku dhintay tiyaatarka gaar ahaan madaxdii sportska Soomaaliyeed ee meesha ku geeriyooday sidoo kale shacabkii kale meesha lagu xasuuqay waxaanan sidoo kale Ilaahay ka rajeynaya inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii kale ee ku dhaawacantay qaraxa isaga ah dowladuna way ku dadaalaysaa inay u hesho يعني تسهيلات كي عافمات هدي لها يرهدو دذلك كذا نكون جرنا وعن رجينا إن أنت دعوة إن يهلان عافمات دقة أنت دوما تاني لها ونحرست أنا مركز استعسيد أجارك أو دريه أمة الصومالية وقدام بين ما حد يقول باقي لهذا أمة الصومالية أمة الصومالية ده حنقول باقية إن ما أنت استبدل ده بهدلك وكجره ساس دراديد إن aan ka bixi doono dhibta 20 sano colaada 20 sano dawladnimo la'aan 20 sano oo ah xarigjiidkii in laga gudbo loo gudbo marxalad cusub dawladnimo horumar ee qarnamadii oo la soo celiyo iyo inaan ku dadaalo in Soomaaliya ay yani doorkii ay ka lahayd dariska doorka ay ku lahayd Afrika doorka ay ku lahayd adduunka in ay buuxiso in aanu diyaar u nahay wadadeena aan ku taaganahay insha Allah waana gaari doonaa marka dhan inaan ummadda Soomaaliyeed u muujino in rajadii yani dalku meel fiican ay marayso dadaalna loo baahan yahay marka shacab iyo dawlad iswata ayaana gaari kara goolka isaga ah marka unity waa loo baahan yahay yani midnimo loo baahan yahay laga baxo marxaladda iyada aan ku jirno uguna gudbayno marxaladaas kale aan isleeyahay waa u baahan inaanu aan gaarno insha Allah intaas ayaan ku soo afmeeraynaa daawadayaal waraysiga gaarka ah ayaan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas